Genaraal Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciiro iyo saraakiil kale oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya ayaa booqasho ugu tagay tiro dhaawacyo oo la dhigay isbitaalka Koonfureed ee magaalada Gaalkacyo, kuwaasi oo saaka subaxnimadii hore ku dhaawacmay weerarkii isqarxinta ah ee ka dhacay Gaalkacyo. Saraakiisha ayaa sidoo kale booqday xaruntii la weeraray ee Sheekh Cabdiweli oo 11 uu ka mid yahay wadaadkaasi ay ku dhinteen weerar ay ku qaadeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab xarunta oo in muddo ay ka socdeen weeraro culus oo dhex maray ciidamadii halkaasi gaaray iyo sidoo kale maleeshiyada weerarka soo qaaday ayaa waxay sheegeen in ciidanka danab oo garab ka helaya ururka guulwada qaybta 21aad ay saacado kadib ku guuleystaan in ay soo afjaraan kooxdii weerarka ka geysatay xaruntaasi. Saraakiisha ayaa haatan waxay ka qayb galayaan aas ballaaran oo loo sameynayo dhammaanba dadkii ku geeriyooday weerarkaasi. Taliyaha qaybta 21aad Genaraal Ciiro ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamadu ay bixiyeen wax walba oo awoodooda ah kadib intaysan dhicin weeraradaasi, waxaana intaasi ku daray in la badbaadiyay ama ay suurtagal noqotay in la badbaadiyo dad fara badan.